والصلاة والسلام على من لا نبي بعده. وحنا هذا السلام يا أرضي قيمها بدن أفردية حفلة وحكلون سيجارة يجنا السلام يا صدق ذا قبضود مسرح إنه فردية لبض قبضود أبوجا إنه فلنقيني إيو استاهل أو يدنا حريريها أما وحويان كوردينيتر كأوه هيد لبض قبضود أبوجا إنه فلنقيني. وحكلون سلام يا مصطفى محمد حسن قدوميها مكتبة وحويان حفلة قيمها بدل لقو قبانيا انت كذب وحرنتي وحاديا نقو فرحيا أرضي دأدودو وحويان طبعا انت ايدين موقعتاي تهي iyo hawsha ay qabteen miisaanka ay leedahay buugga la yiraahdo Rich Dad Poor Dad anigu waxaan akhriyay isagoo afka Ingiriisiga ku qoran waxaan filayaa wixii ku qornaa waxay ka tageen ma jiro hadduu jirana waa yar yahay marka aad iyo aad baan u hambalyeynaya hablahaasi inay wax akhriyeen fahmeen falanqeeyeen dadkiina ay soo gaarsiiyeen waxa si fiican aynu hablahaasi dhiiranaantooda uga arki karnaa faa'iidooyinka uu leeyahay inaad wax akhrido marka anigoo madashan aan joogno waxa ku munaasaba uga faa'iideysanaya waxaan idiin soo gudbinayaa 10 faa'iido oo ku jira inaad wax akhrisato inaad adigu buugaagta la saaxiibto oo noqoto qof akhriskiisu badan yahay maxaa faa'iido ay ku leedahay 10 baan ku sheegayaa note garayso aadna u dhageyso marka ugu horeysa akhriska faa'iidada koobaad uu leeyahay waxa la yiraahdaa waxa uu kobciyaa creativity-ga hal abuurnimada qofku markuu yahay qof akhriya wax had iyo gooraale waxa u fududaata inuu wax cusub soo kordhiyo maxaa yeelay buugaagta kala gedisan ee uu akhrinayo afkaaro ku duugan ayuu kala soo baxaya marka labaad akhrisku wuxuu ku faa'iideynayaa inaad wax kugu cusub barato waana ta kaliya ee haddaynu bulsho Soomaaliyeed nahay aynu xoog saarno waxaad wuxuu akhridaa si aad wax u barato marka saddexaad akhrisku wuxuu kobciyaa vocabulary-ga ama se ereyada aad adigu taqaano waxa uu ka dhigayaa qof hadal yaqaana murtiyahana erey bixinta munaasabka ahna hel yaqaana marka afraad waxa uu akhrisku ku kobcinayaa awooddaada xusuuseed oo markaad akhrido book 200 page exercise jimicsiga maskaxdaadu sameynaysaa taasi waxay kobcinaysaa in aad si fiican u xasuusan karto waxyaabo kala gedisan marka shanaad akhrisku wuxuu kor u qaadaa awooddaada aad wax ku concentrate gareynayso waxaan leenahay Ingiriisi intaas ku soo qurux badnaanaysaa it increases your concentration and attention akhriska faraha badan wuxuu kor u qaadayaa waxa weyn oo kobcinaya inaad ahaato qof alert ah feejigan maxaa yeelay buugga akhriyaysa markuu 100 page wax ka badan yahay wuxuu kaaga baahan yahay u fiirsi iyo joogtayn iyo inaad isha ku hayso marka attention-kaaga wuxuu noqonayaa mid sareeya marka lixaad akhrisku wuxuu faa'iido ku leeyahay inuu adiga ka dhigo qof qoraaya author qofka yiraahdo waxbaan qoray waxa uu soo akhriyay marka hore haddaad doonayso inaad buug qortana waxa ka horeeya akhris aad u fara badan inaad samayso sababtu waxa weeye waxaad fahmaysaa qaabka ereyada la isku raacinayo qaabka loo xiriirinayo xulashada ereyada munaasabka iyo waxa weeyaan wax kasta oo la xiriira qoraalka marka qoraalku wuxuu ka dhigayaa qof in akhrisku wuxuu ka dhigayaa qof qoraaya aan ilaahdo marka toddobaad waa faa'iido caafimaad waxa la yiraahdaa akhriska faraha badan ee qofka wuxuu ka yareeyaa stresska waxa loo yaqaano stress waa isku buuqa in maskaxdaadu busy ahaato mashquul jelis ka dhex garaacmo aanad maqlayn dhagaha laakiin maskaxdaada gudaheeda ku jira kaasa stress loo yaqaana marka akhriska faraha badan dawo wuxuu u yahay isku buuqa iyo stresska marka sideedaad waxa la yiraahdaa akhrisku wuxuu kor u qaadayaa awooddaada faham wax badan baad fahmaysaa waxa weyn understanding ability ayaa kor u qaadmaysa kobcaysa qof waxa noqonaysa wax kasta si fudud u fahma
marka sagaalaad wuxuu ka dhigayaa qof civilized oo bulshada kale ka horeeya ardayda halkan nala fadhida waxaan filayaa inay dhammaanteen inaga wada horeeyaan sababtoo ah age-ka waxaan filayaa in lagu waa form 1 the book is akhriyeen oo buugaagta ugu iibsiga badan adduunyada qof more civilized oo akhrisu ka dhigaya bulshada kale ka horeeya marka ugu dambaysa akhrisku waa marka tobnaade wuxuu faa'iido ku leeyahay waa exercise-ka maskaxda wax waliba jimicsi u baahan yahay iskala bixin marka exercise-kay maskaxdaadu u baahan tahay waa to read inaad akhris badan samayso Joseph Addison oo ahaa waxa weeyaan qoraa jiray qarnigii 17aad ayaa halkudhig u yidhi waa wuxuu ahaa akhrisku wuxuu maskaxda ugu jiraa halka jimicsigu ugu jiro jirka kale jimicsiga caadiga ah ee xubnaha jirkaaga dhaqaajinaysa jirkaaga iyo caafimaadkaaga guud bay kor u qaadayaan sidaas si lamida waxa halka ugu jira maskaxdaadana exercise-ka waxaan hadalka ku soo ururinayaa oo idin sheegaya laba quote laba weerood oo dad waxa weeyaan akhriska qiimo u yeelay ay yiraahdeen qoraa Americana oo magaciisa la yiraahdo Gary Taylor oo ahaa aasaasihii barnaamijka loo yaqaano Minnesota Public Radio Show ayaa wuxuu ku leeyahay a book is a gift you can open again and again buugu waa hadiyad aan dhammaad lahayn xilli walbaad haysato maanta haddaan xabad buuga ku siiyo dee inaad adigu si uu ka soo baabiiso mooyaane siduu kaaga lumaa way adkaanaysaa Mark Twain oo ahaa isaguna American novelist dadka buugaagta qora dhalashadiisuna Maraykana oo buugaagtii ugu qiimaha badneed oo qoray uu kamid yahay buugga loo yaqaano The Adventures of Tom Sawyer qarnigii 18aad isaguna wuxuu leeyahay the man who doesn't read good books has no advantage over the man who can't read them nacam macnuhu waxa weeye qofka buugaagta aan akhriyin wax allaaliya wax u dhaamaa ma jirto qofka aan isagu akhriska karinba oo qofka aan akhriska karinin dee waa qofka aan iskuulba gelinayn ba iyo waxyaabaha aan loo dhigin marka haddaad adigu taqaano ood wax qori taqaano ood akhrin taqaano laakiin aanad tamar iyo waqti aanad u haynin inaad buugga akhrido waxa allaaliya waxaad ku dhaantaa ma jirto waxaan hadal ku soo ururinayaa mahadnaq waxaan mahadnaqayaa horta hablaha aadka u daadayar istaayl waan si fiican u garanayaa hablaha kalena iyagana magacaantiinu baanan xasuusan laakiin dad aad u qiimo badan baa tiin hawl fiican baa qabateen buugga inaad akhrisataana qof walba way anfacaysaa Soomaalidu waa dad jecel inay daqiiqada ku taajiraan oo qasnada lacaga urursadaan buuggan wuxuu ku sheegay sida hablaha soo falanqeynoo sheegeen qaabka qasnadaha u ururin lahayd markaas uu looma wada baahna waa filaya marka kale waxaan u mahadnaqayaa maktabadu magaalada dabcan wax aad iyo aad u weyn bay ku soo kordhis waxaad arkaysaa waxa weeyaan dhalinyaro aad u fara badan oo waxa weeyaan dhammaantood si confident ah bilaa cabsiya dadka hortooda uga hadlaya barnaamijyo soo diyaarsanaya buugaag soo akhrinaya waxa weeye maktabadu kaalin aad iyo aad u weyn bay inoogu jirtaa aad baan ugu mahadnaqayaa Mustafa Maxamed Xasan oo dhalinyarta ardayda ah aad iyo aad u garab taagan run ahaantii waqti badan siiyay xaflad kastana waan ugu imaadaa isagoo la fadhiya runtii waxaan leenahay maktabadu waxay heshay maamul munaasaba Cabdiraxmaan isna waxa filayaa inaanay magaarkayn laba mas'uul aad u qiimo badan iyo hawlwadanada kala baan idinku mahadnaqayaa hadalku waan idinku dheereeyay waxaan mar kale ugu mahad celinayaa hablaha buugga soo akhriya aad baad u mahadsantiin inta ay in ka badan oo idin rajeynayaan insha